heestuna hidhagle waxaan sameeyay 2011 markaa sheeke iiga sheekiyeen jacayl oo dhexdooda martay baan heestaa ka sameeyay runta suugaantu waa khiyaali oo qofku sawirto dabeetana uu bedelo hal abuur ama qaafiyad أنا لما بقي واحد ترشع الصبح بتبعد هذا بدني صارن بعديه متسرع بقول لك يجاري يكي صغير وبلشري وبندقي باقي الصومالي وبرارجع بلشية قوم بتشهلجة كجبا حيسان الصومالي برارجع مقعد وقمان عبد الواحد تنوى شكل قمان عبد الواحد محمد بلدها وحن كل شيء مقالة قبل كسناك مقالة الدهر halkaasaan kusoo barbaaray dugsi hoose dhexe Boosaaso secondary school waxaan ka mid ahaa dadkii u hayaamay adigu dibadaha sidoo kale Imaaraadka ayaan ku noolaa muddo 12 sano ah xiliyadaas waxaan kusoo biiray fanka iyo suugaanta soo biirday fanka iyo suugaanta wax dhib badan ma ahayn runtii markaan yaraaba anigu fanka iyo waa iska jeclaa oo hees jiray laakiin si heestii ugu horeysay aan sameeyo waxay ahayd hees aniga iyo khusayso oo ku timi xaalad jacayl marka dadka jacaylka u badan baan ahaa suugaantii jacayl bay ka bilaamatay waxayna ahayd hees la yiraahdo tagto sooma noqoto heestii ugu horeysay oo sameeyay haddaan ereyada wax kaaga taabto kalgacalkaada igu tallaashay tiniyo ciribbo i raaco tallaabadan gabay dartaaye turiinshamiyad iloodi miyaadan tabayn jacaylka tusaale iyo talo miyaadan inaba teen xasuusan hadduu tafaraaruqeeno siduu ii taabanayo adiga ku toobi weeyay qarbaan toobiyeenayo ana dhagax toojinay ilaa tagto sooma noqoto heestuna hidhagle waxaan sameeyay 2011 anigoo jooga Imaaraadka Dubai heestaas waxay iga codsatay gabar fanaanada inaan u sameeyo oo ay markaas nin guursadeen iyagoo aroosa markaa sheeke iiga sheekiyeen jacayl oo dhexdooda martay baan heestaa ka sameeyay waxa qaaday Farxiye Fiska laxanka waxa lahaa Jookle saaxiibkaya sidaas ay heestaas ku timi wadama jacayl nafta dhaawaco ani dhaawaco dhalruga jirkii ruuxiyo qalbiga idhex qaadayo wadnahay dhagle dhag 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 wadnahay dhagle riwaayadaas waxaa la dhihi jiray intuu maan ku gaajaysan yahay guushu waa weli waxaan ku samaynay dalka Imaaraadka waxaan dhignay 2007 waxaa dhigtay fanaaniinta Dubai Star oo ay weheliyaan fanaaniin dibadda nooga timi oo uu ka mid yahay Cabdishire Jaamac Jookle fanaaniintaas waxaa dhigay waxay ahaan 13 fanaan oo badankooda aad wada garanaysaan waxay ahayd riwaayad wadaniya oo ka hadlaysa dalkeena burburkii ku dhacay heesaha riwaayadda ku jiray heesta waxaa wada aktarka iyo aktarada koowaad Jookle iyo Idil bay ahaayeen waxa qaada waxa la yiraahdaa waa heesa jacayla qondayso meel kale baa la yiraahdaa nolosha xuquuq loo qofka lagu ogaada sidii ku qadariyay inay yahay qiyaamaha la isuma daqumiye qayrkii daraada adigan daraada wax la qaybsan waay qarka waxaan saarnay inaan galo qabuurto cilmi qoysahan saasuu qaaday iyaga duruufuhu dadka aragtidiisiyo dadihiya noloshee intan diif jacayl qabo عشقونا دعرتيو دباغديغو يهي دلنبا بيجيسيو ويدور كالقعالكوي لحن كابح سميه جوخلة ريد أنيقا سميه waxay ku jirtay riwaayadaan ku sheegay oo la dhaho intuu ma ku gaajisayay guushu waa weli waxa qaada Axmed Biif aniga sameeyay waxa ka mid tahay heesiisii ugu horeeyay وبحي أديقو يقوارنتو شايلة نعدي سيدا أورهينا يهو قامسي
halkaad igu wadaba miyaan uursamaan oo fiya kalgacal eed lama qarshay anigoo adiga ifka kugu jecel heestan waxa la farxiyo waxa qaadashay mirad arq lahanka isaga lahaa eriyadana aniga sameeyay miyaan saxda hurdada miyaan soo jeedarteed salad markii la kaco anigu soo taaganahay samantaada hay intaan isasiigilayn jacaylkiisu mana sida ayaan looga tegin ada farxiya sidriga sidii ubax uga baxo haween baad u sitay kusoo soco saacaba furan kusoo soco saacaba furan heesta xariirta la yiraahdaa waxaan u dhiibay in la yiraahdo Cabdulqaadir Saaxil Qaadir Jacayl waxa isqabay wiil iyo gabar ku dhashay dadkii khaliijka ku koraya baahan oo aan Soomaaliga aqoon wiilka ay gabadhaas waxa iimi wiilkii oo sheekadaas ila wadaagay wuxuu ii sheegay gabadha inay Abu Dhabi ku wada dhasheen gabadhii iskuursadeen marka qisa isfaham waa oo labadoodii dhex maray oo gabadha oo ay soo aroostay oo meher badan iyo maxaan ku kharash badan oo reeroodu geliyeen baa jiray heesta ereyadeeda ka fahmi doontaan aduu gabadhii telefoonkiisa oo kale bay message ka dirtay iyadoo qof kale oo carab ay taqaan ka caayisa sidii baa ninkii lagu xiray xarig buu ku galay iyo masaafir waliba marka heestaas qisadaas aan ka sameynay tiyaan xariirtiyo u xiraayay dahabkood xaskaygii noqotaa rumaygu samayso wanigan xaggeedii suugaanta waxay muhiimad u leedahay af Soomaaliga sideedaba inagu waxaan nahay dad ka soo jeeda miyiga suugaanta dhaqankeenana waxay ku salaysan tahay suugaantu waxay ka bilaamataa sideedaba waxay ka bilaamataa ciyaar dhaqameed iyo cayaan sacab waxa ku xigay berigii hore waxaan isticmaalay gabay oo wax soo gudbin jirnay marba jiray aan telefoon jirin taar jirin waxba jirin la isla hadli jirin oo gabay la soo gudbin jiray akhbaaraadka marka laf dhabarta ugu weyn oo ay waligeedba dadka Soomaalida waxa uu ahaa gudbiye ama waxay ku xiriiraan suugaanta oo ahayd sidoo kale gabayga oo ahaa marka hadda xogaa waa la casriyay oo riwaayado iyo ba ka dambeeyay oo abwaanadii dhexe oo ay hadraawi kamid ahaayeen sangubiyo waxay sameeyeen in heesay sameeyeen riwaayaday sameeyeen wixii waxay u sameeyeen maxaan ku raada waa si casriyeen haddana waa si casriyooday oo diiwaarka saamfinaanta sidii u qaadayso marka muhiimad weyn bay Soomaalidu ugu fadhidaa suugaantu sida aan aaminsanahay